macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada dawladda magaalada Burco oo isu soo bax sameeyay ayaa si weyn u qaadacay hadal ka soo yeeray wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo dhawaan sheegay in macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada dawladda imtixaan laga qaadi doono waxaanay sheegeen inaanay galaynin imtixaan aanay ku dalacayn iyagoo taabtay in wasaaradda waxbarashadu hore imtixaan ay uga qaaday ay haystaan cadeymahoodii macallimiinta ayaa sheegay inay wax soo dhigayeen inta jirtay Soomaaliland oo inta la siin xuquuqdoodii macallin waliba waxa uu sitaa warqadii uu ku soo baxay ama shahaadadii uu markaa lagu shaqaalaysiiyay haday tahay tii markaa ay xalane markaa wax weyn qof markaa iska soo galay ama daaqada ka soo galay ma jiro qof waliba hore uu imtixaankan u soo galay hore loo soo baastamiireeyay hore markaa yaani nidaamkan u soo dhameystirtay markaa maanta in lagaga soo boodo sidii ciidan beelad la soo ururiyo la yiraahdo waxa tiin markaa dad suuf aloola oo yaani waa la kala miiraya de markaa xaqna looguma laha waar wixii ka xoreeyay xisbigii kulmiye waan nala sharfi jiray waa dadweynaha iyo wasaaradda sharaf baanu ku lahay hanti waligeeba wanaagsan maanu qaadan tababaraan nala siin jiray niyada naloo dhisi jiray wasaaradda waxbarashada waxaan leeyahay halka ka daydeen tayeenta macallinku kuma jirto waar halka ay ku jirto halaga dal macallimiinta marka adeegtid dhibaatooyinka ku xeeran marka adeegtid waxaad moodaa inaan cid ka warhayn waxaad arkaysaa macallin 20 sanadood ama 15 sanadood 16 sanadood shaqaynayay oo bila mushahara waxaan leeyahay hal la iska warhayo oo hal la eego oo macallimiinta hoos loo eego oo hal la eego xaqooda 30 sanadood marka ayaan macallin tii dambe markaan ka soo bilaabo ee Soomaaliland marka laga soo bilaabana waxa weeyaan waa 7 halkan imtixaan baa leeyahay waad galaysaa waxa mushkilada oo la yaab leh oo naga wareerisay oo maskaxdayadii ay qaadan weydi qof ma imtixaan marka uu galo ee uu ku baaso oo shahaado ka qaato hore waa loo socdaa mid kale dawaa la siiyaa oo imtixaan kale uu galaa laakiin tii aan qaatay ayaa haddana imtixaan lagaaga qaadaya ma waxaan la aqoonsanayn ma tii horaan la aqoonsanayn taas ahayd ee aanu qaadanay ee aanu jaacada ka qaadanay wasiirka ama madaxda waxbarashada ee leh macnaha ma waxaanay aqoonsanayn taa ma taa Soomaaliland ka soo baxday wasaaradda waxbarashada imtixaanka ma galayno sababta aanan ku galayno waxa weeye dawaanu haysanaa waa kaade marka ma Soomaaliya tii Soomaaliya nala doonaya way hay'ad marka macnaheedu waa sidii waanu haysanaa shahaadadii haday tii tababarka tahay iyo tii macallinimada haday ay tahay iyo tii iskoodka haday ay tahay waanu haysanaa macallimiintii Soomaaliland karaamadeedii iyo sharaftoodii iyo sumcadoodiiba hoos bay u dhigeen waxaanu idin sheegaynaa inaad xaal ka bixisaan hadalka ay ka sii dayseen TV-ga macallinku wuxuu doonayay maanta reerka uu taabanaya shahaadada uu sito in laga sii sareysiyo oo free education oo tacliin furan oo ka helo maxay tahay jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa macallinku eegay oo rajeynay laakiin muu eegayn wuxuu soo dhaafay 2005 2013 iyo 2002 ayaa dib lagu celinayaa waa wax la yaab leh waxaanu leenahay imtixaanka ma geeyno shahaadaan ku haysanaa ma geeyno weeye macallinkii leeyahay rasuul buu ku dhawaaday nin kasta indhaha u kala jeexay xaq waxa weeye maanta koolkoolin iyo amaan inaaduu leeyahayne uu ka mudan lahaa dawladda waxaabay ugu mahadnaqay ugu jawaabeen oo badiilkiisa ay uga dhigeen inay yidhaahdeen la shay baa tahay macallinku waa ka wasiirka hadlaya wax baray ninkii wax baray indhaha u kala qaaday ayuu raxmadtiid waxay taxaan aan uga lahayna ma jirto waa sida qof walibana wuxuu ku yimi markis dhibco qofnimo personality wanaagsan ayuu macallin ku noqday Mahad Ali Goodir Star TV Burco.